Raxmaan Raxiim kusoo dhawaada Somali News. Maanta waxaynu ka hadli doonaa gastric mise xanuunka gaas calooleedka loo yaqaano. Haddii aad ku cusubtay channelkeena subscribe sar, wax ka baro xanuunada gaas caloosha ama gaas caloolaadka. Maanta waxaynu soo qaadanaynaa waxa uu yahay gaas ama gastric, waxa keeno, calaamadaha lagu garto, sida loo baaro iyo weliba sida loo daaweeyo. Waa maxay gastric? waa caabuq diiqa ama boog ku timaada dahaarka caloosha. waxa uu noqon karaa mid degdeg ah ama mid degdeg ku dhaco acute, iyo mid daba dheeraada oo ah chronic. Maxaa sababa gastric? Gastric waxaa sababa isticmaalka alcoholka in badan, inaad mantagto, stresska, in gaajada aad isku dhaafto, in aashitada caloosha ay isku dheelitireen, in cuntada xawaasha ku badan tahay aad isticmaasho, inaad isticmaasho daawooyinka la yiraahdo anti-inflammatory drug sida aspirinta. Calaamadaha lagu garto gaaska ama gastric: yalaaluga ama lalabada, mantag, laabjeex, mantag dhiig la socdo, bogga ood moodo inay wax ku tahay markii aad biyo cabtana kaa dhago, inuu soo noqnoqdo xanuun xagga caloosha ah sida nabar oo kale, caloosha oo dibirta, cunto xumo ama cunto xumi, miisaanka oo yaraado. Sidee lagu garan karaa ama loo aqoonsan karaa? Magaca cudurka iyo astaanta saxda ah. Endoscopy waa qalab afka inta qofka laga geliyo ilaa caloosha sawiraya, kaasoo lagu ogaan karo hadduu nabar jiro. Sida loo daaweeyo: daawooyinka yareeyo acid caloosha, iyo antibiotic haddii bacteria ay jirto, iyo daawooyin ilaaliyo dahaarka caloosha oo la dhaho proton pump inhibitors. Sidee loo yareyn karaa khatarta gaaska? Daawooyinka aan lagu qorin inaad iska qaadato waxa ay halis ku tahay caloosha, siiba daawooyinka xanuun baabi'iyaasha, cuntooyinka suugada ku badan tahay ama basbaaska iyo dhanaanka badan, iyadana inaad iska yareyso. Haddii aad ku cusubtay channelkeena subscribe sar mar kale.